qaybtan waxaan ku arki doonaa sida loo isticmaalo Windows 10-kaada taskbar-giisa sidii aad customize ugu samaysan lahayd. Tusaale kale, markii aad taagan tahay taskbar-ga oo aad right click tiraahdo, waxa kuu soo bixi doona intan option. Mid kasta wixii loo isticmaalo ayaan arki doonaa. Waxaan ku bilaabo doonaa toolbars. Toolbars asaga ku dhufo kadib waxa kuu soo bixi doona intan option. Toolbar wuxuu ka saacidi karaa address-ka ayaa kamid ah waxyaalaha aad ku arki doonto. Address-ka muxuu ka saacidaa? Address-ka waxaad u isticmaalay markaad doonayso file linkigiisa inaad hesho. Tusaale kale asaga ku dhufo kadib inta wax kuu soo bixi doono option-kan. Meeshaan waxaad doonto ayaad gelin kartaa linki aad doonto ayaa gelin kartaa kadib go ay leedahay. Tusaale kale si aan u aragno siduu u shaqeynayo kan ayaan ku dhufanay. Magaca maxaa ku qoran inta ku qoran ayaan ka raadinayna. Waxaan leenahay magacaas noo qor. Magacaas markuu kuu soo baxo file-kan waa kan, magacana waa kan. Asaga ku dhufo marka kadib waxa soo bixi doona intan option-kan uu soo baxo kan waa furitaankii file linkigiisa. Marka waxaan u baahanaa file linkigiisa inaan helno. Kadib meeshaan imaw control v ayaa ku leedahay ama paste. Kadib meeshaan waxaa ka arkaysaa linkigan file-kan linkigiisa ayaa meeshaan kaaga muuqda. Hadda u baahantaa inaad weynaysto astaga inta ay qabani kadib waa jiidi. Waxaa arkay inuu meesha weynaatay. Kadib waxaa dhihi marka inta ama waxaa dhihi go. Tusaale kale inta ayaan dhahnay waxaa arkay wuxuuna u furi doonaa file-kan meesha ku jiro ayuu ku furi doonaa. Isticmaalaha computer-kan meesha ku jiro desktop oo kan ah iyo folder magaciisa iyo wixii ku dhex jiro intaas ayaa ku arkaysaa. Qaybtaas saas ayaa loo isticmaalaa. Si marka aad u bixiso waxaa dhihi control A si dadan delete. Kadib waxaad arkay wixii doonto ayaa meeshaan kala siin kartaa linkigiisa ayuu ka saacidaa. Hadda u baahantaa inaad bixisano meeshaan ayaa right click ku dhufanay kadib toolbar ayaa tagay address tick saaran ayaa ka qaaday. Kadib waa ka baxay kaas. Qaybta kale waxaan ku arki doonaa toolbar markaad saarto linkan muxuu ka saacidaa? Linkan wuxuu ka saacidaa kulligood inta ku saaran inay inta ku wada galaan. Kulligood tusaale kale meeshaan jiidad. Meeshaan markaa jiid waxaa arkay kulligood inay meeshaan wada xareynay. Kulli waa ku yaraadeen inta ay ku wada galeen. Linkan ay wada galeen. Marka kan ayaa ka isticmaali kor kan ayaa ka wadanay. Saas ayaa badanaa linkaas u ka saacidi karaa. Hadda u baahantaa inaad bixiso asagana meel kamid ah ayaa right click leedahay. Kadib waxaa dhihi toolbar link ayaa ku dhufanay. Waa ka baxaya. Meesha u bixin toolbar qaybtan waxa weeyaan desktop. Wixii alla wixii desktop aad u baahan tahay oo meeshii computer-ka aad taglaad PC aad taglaad oo kale marka desktop-kan inta ayaa saaran kartaa. Asaga ku dhufo kadib desktop inta ayuu ku saaran yahay. Wixii alla wixii desktop aad u baahanid inta ayuu ku saaran yahay. Ku dhufo asaga kadib waxaad arkay intii option oo desktop aad ku haystay ayaa meeshaan kaaga soo muuqda. Si fudud ayaa computer-kaada wixii ku jiro meeshaan ayaa u saaray kadib waxaad arkay computer-kaada wixii ku jiro si sahlan adoon meesha waqti ka lumin. Arkaysa meeshaas si sahlan waxa raadin kartaa desktop taas ayuu ka saacidaa. Hadda u baahantaa inaad weynaysto asaga tay waa si weynaysan kartaa. Waxaa arkay marka wixii ku soo jira waxaad ku furan ayaad arkay. Hadda u baahantaa inaad si weynaysto wixii ku jiro ayuu ku soo wada qaaday. Marka saas ayuu ku fiican yahay. Kadib hadda u baahantaa inaad ka baxdo asagana tigta ay qaad. Kadib qaybtan toolbar waxaa ku jiro wax kale oo loo yaqaano new folder. New folder muxuu ka saacidaa? Tusaale kale waxaad u baahan tahay folder adiga muhiim ku ah oo markasta meeshaan aad ka raadin lahayd ayaa inta saaran. Kadib waa ku dhufani meesha ayuu goynaa. Maxaa u baahan kalo inaan isticmaalno folder oo loo yaqaano qaybtan Photoshop oo kale. Folder-giisa ayaan u baahanaa markasta inuu meesha noo saarnaado. Waxaan arkay marka folder Photoshop-ka inta noo saaran. Hadda asaga ku dhufato waxaa arkay wixii kugu jiro. Si sahlan wixii file kugu jiro meeshaan ayuu ku saaran yahay. Wixii ku muhiimsan ayaa meeshaan saaran. Hadda u baahantaa mid kalena oo ku dirsan kartaa asaga ayaa ku dhufani kadib new folder ayaa leedahay. Mid ka doonto ayaa meeshaan soo saar. Haddaan u baahanahay documents oo kale asaga ayaan ku dhufanaa. Kadib select ayaan leenahay meeshaan waxaa noo saaran inuu muhiimsanay Photoshop folder ah iyo documents wixii ku jiro. Inta ayaan ka wada arkaynaa anagoo computer-ka galin waxaan raadin meeshaan ayay noo saaran yihiin. Document waxaa arkay wixii kugu jiro si sahlan ayaa meeshaan aad u heli kartaa. Qaybtaas toolbar waa waxyaalo muhiim ah oo u baahan inaad fahanto si aad waxyaalaha files-ka ku jiro si sahlan aad ku hesho. Hadda u baahan inaad qaadana tigta ayaa qaaday. Kadib waa ka baxaya midkaas kan kalena si lamid ah asagana waa baxaya. Toolbar-nagi marka Photoshop bixin kadib intaas ayaa toolbar ku saaran. qaybtan intaas ayaan ku baranay. Intaas soo faan kadib waxaan aad doonaa search wixii loo isticmaalo.